الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إلهي بقى مهدس كله سبحانه وتعالى عمرك إنه بركي توفيق إنه وافجيه سبحانه وتعالى إن وقت كان سوقرنه إلهي مارته سبحانه وتعالى إنه قدري أيام هذا إسكال جل وعلا تطفر بدن بقى وقت كان سوقرنين ما دام إلهي جل وعلا أنا أديك بقى إلهي نجمد دقي وقت كان ذاتك نول نعمة إلهنا يكملتها سبحانه وتعالى بشي رمضان كإنه مارته الباب صوقر عيسو بشي رمضان كإنه يسود وذهي qofka muuminka ah iyo gabadha muuminada waxa lagu yaqaan calaamadahooda cibaadooyinka waaweyn ee maartay inay u diyaar garoobaan qofka daacadda ah iyo qofkan daacadda ahayn waxay ku kala caan yihiin oo shariicada islaamka kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka hadlay cibaadooyinka waaweyn muuminiintu waqtiga hore ay soo diyaariyaan u diyaar garowga iyo maartay soo dhaweynta iyo cibaadadaasi uga faa'iideysan lahaayeen habka u diyaar garoobaan baa lagu gartaa iimaankooda nabigeena calayhi salaatu wasalaam ghazwatu tabuk oo ghazwa aad u dheereed ahayd ama maartay u dhib badneed waqtigeedii ayaa muuminiintii raacay subhanahu wa ta'ala iyo dadkii maartay kale oo munaafiqiinta ah oo daacad aan ahayn ay quraanku wuxuu kala soocay ama ay ku kala soocmeen ama lagu kala garanaya xagga diyaar garowga oo Ilaahay ku yiri walaw araadu al-khuruj la a'addu lahu 'udda haday maartay doon lahaayeen inay baxaan oo nabiga ay raacaan calayhi salaatu wasalaam waa u diyaar garoobi lahaayeen buu maartay Ilaahay ku yiri subhanahu wa ta'ala u diyaar garow anta maartay san u diyaar garoobi ahayn waxay ku tusisay inaysan daacad aysan ka ahayn marka waxaan leenahay soonka oo kale walaw araadu siyama la a'addu lahu 'udda haday dadku qofkii soonka maartay inuu ka faa'iideysto doonaya waxa weeyaan waxa lagu garanaya calaamadihiisa lagu garanayaahi waa diyaar garowga oo maartay soonka oo u diyaar garoobo weeyaan nabigeena calayhi salaatu wasalaam saad ogtiin sidoo kale saxaabada ugu sii bishaarayn jiray maadaama ay maartay waqti aad u barwaaqo badan waqti aad u khayr badan waqti ma garanaysa qofka caaqilka ah ee maartay uu ka faa'iideysto ay tahay ayaa rasuulka naga calayhi salaatu wasalaam waa u sii saxaabada u sii sheegi jiray wuxuu ku oran jiray hada shahr ramadan jaakum tuftahu fihi abwaab aljanna wa tuqlaqu fihi abwaab an-nar wa tusalsalu fihi shayatin saddex wayaaloodba oo bisha ramadaanka lagu soo dhaweeyo waxay ku tusinaysaa bis inay maartay in loo diyaar garoobo qofka muuminka lagu rujinayo ama muuminiinta lagu tartarsiinayo nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu bisha ramadaanka soo galayso ayaa wuxuu oran jiray waatan bisha ramadaanka waqtigeedii baa la gaaray tuftahu fiha abwaabul janna jannada irdeheeda ayaa la furaa ma maxay jannada irdeheeda ayaa la furaa waxa weeye waa muuminiinta loo bishaareynayo oo la soo dhaweynayo oo la doonayo maartay inay u diyaar garoobaan oo jannada Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo sababtay ku gaari lahaayeen baa la gaaray oo jannada lagu gaari lahaayay inay maartay sababtaasi ka faa'iideystaan ayaa waqtigaasi ayaa loogu talagalay saadarteed uu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam ayuu ku tartarsiin jiray wuxuu oranayay عليه الصلاة والسلام تفتح فيه أبواب الجنة جنة إرديه هذا أيال لفري مركو حالنا قف كستا أو مانتا إلهي سبحانه وتعالى أو نرشا كسمي أو وقت كان سوق جاري واحد أوقات البابه جنة أيال لفريا وجدد الله هذا هاي نرشا هذا وأسد جاري لها جنة ويان نارت إلهنا سبحانه وتعالى وجبت باد لهت لنا عكلا وتغلق فيه أبواب النيران وتغلق فيه أبواب النار زي رواية دورنا الباب هذا النار تنا سوق الوال الحراب ومارتا نبي كوير عليه الصلاة والسلام الباب كان نار تحرتان كذا وحي النار لو جبت باد لهاي ayaa bisha ramadaanka maartay ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhaxdhigay wixii naar maartay looga fogaan lahaa baa Ilaahay subhanahu wa ta'ala bishan ayuu soo dajiyay cibaadooyin waaweyn iyo taacooyin waaweyn oo qofka maartay naarta darbi ka celiya noqonayo oo naarta uga badbaado Ilaahay sabab uga dhigay naarta uga badbaado ayaa sidoo kale bishan ramadaanka qofku uu qaban karaya sida waxyaalaha qaar ka tilmaami doono marka arinta labaad oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiiska uu sheegay saxaabada waxay tahay albaabka naartana waa la xiray marka wadooyinkii waxa weeyaan arinta saddexaad oo bisha ramadaanka lagu soo dhaweeyo sheegay وتسلسل فيه الشياطين شيطان مدنا وحويا ولا حراء ولا حكمية ولا قبراء وحويا ولا تشبايا شياطين تواوين مردة الشياطين شياطين تبارتك وجين لهاد أو كل من لهاد أو ما تحقق كاف وجين لهاد أو حمدك وكحين لهاد بشهر رمضان كإذن واحرين سد حداث وحيالات برسولك عليه الصلاة والسلام وجب بشهرين ترى أنت مارت بشهر رمضان مركز يسوق جليسه مركوا بشهر رمضان وحويا وماشي مارت خيراتك اللي وجار لها بشهر رمضان مركوا أنا وقفك وديار جروبه وحسيبه وقفكم مارت وديار جروبه كرا بشهر ومحاي تديار جروبه laga hadlayo shariicadu ha loo diyaar garoobo ilaahay hadalkaas baan maartay kulanka dambe ku sheegi doona hadii lahayd